waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ruuxi Home Decor. Waa walaasheen Raxmo Ruuxi. Maanta Raxmo Ruuxi saa ujeedin waxay idin wadaa hair mask oo aad waxtar u leh oo nafaqo oo tinta u ah oo tinta ku dheereenayo oo jajabka ka ilaalinayo oo wax kasta ka ilaalinayo insha Allah. Waxa waaye hair mask aaneeto mid aan isticmaalo waaye. Meeshaan saa ujeedin malabaan ku haystaa saliidis gacanta aan ku hay waa xabasoodo saliideeda. Waa xabasoodo original wax kale laguma darin, just xabasoodo bis oo shiidan waaye. Inta waxaan ku haystaa olive oil. Ka bacdi meeshaan haddana waxaan ku haystaa castor oil tinta waxaa waaye xabad weyn ay ka dhigaysaa. Inta waxaan ku haystaa oil treatment oo argan oil argan oil kaaneta edgeska timaha oo ka gogo'aan iyo horada timaha ka gogo'aan dhan u soo bixinaya. Coconut oil saa u aragtiin waxaa waxtarkeeda zaaid u fiican yahay. Inta waxaan ku haystaa nafaqooyinka caadiga oo laakiin toon ka samaysan. Always aan waxaan isticmaalaa nafaqada toonta laga sameeyay. Marka ka bacdi waxaan haystaa hal xabo ukun marka saa ujeedin walaalahayga intaan set aan hadda idin tusay waxaan rabaa inaan ka samaysto hair mask-gaaneeta hadda idinkaaga dhaco waxaa waaye timaha zaaid u bixiyaa. Midda kale haddana xabad weyn oo madow ka dhigaya oo madow tiq oo very healthy hadda aragtid xataa tinta aad naftirkaaga jeclaanaysid soften wuu ka dhigaa insha Allah. Malabka tinta wuxuu ku caawiyaa inuu ka dhigo soft. Sidoo kale xabasoodada waxa waaye tinta black ay ka dhigtaa iyadana oo xabad weyn ukuntana saa u ogtihiin tinta iyadana soft ay ka dhigtaa hair growth-na way leedahay cause waa protein. Hadda saa ujeedin nafaqada marka aan kusoo shubtay waxaan kusoo darsaday 3 qaado saliid qumbe marka insha Allah markaan saliid qumbaha ku daro ka bacdi insha Allah waxyaabaha kale aan ku darayn waa idin la wadaagi doonaa. Intaas oo hadda idin tusay xabad ugu soo daray saa ujeedin ukuntiya soo jabsanaa kusoo shubaya waa kana waa kusoo shubay cause waxa waaye markaan ku shubayo waxa waaye kaamirada aan la duubayo maho ilaa iyo 6 dhibac camal oo waxaan kusoo daray xabasoodada ilaa ay kiseer saa ujeedin waa arkoosin qiyaasta ku darsano maho argan oil ka bacdi hal qaado oo malab ka bacdi after that waxaan kusoo darsaday castor oil oo hal qaado ka bacdi waa kana haddana waxaan kusoo shubtay olive oil hal qaado ka bacdi insha Allah waa soo qasi doonaa walaalahayga saa ujeedin insha Allah waxaa waaye kaamirada aan le oo duwaaga hal gacan aan ku hayaa hal gacan waxaa waaye qaadada aan ku haystaa marka baaquli inaa celiyo u baahan yahay marka insha Allah waa soo qasaya ka bacdi markaas soo noqon doonaa isugu noqdo isku dhaxgala idin ku doonaa insha Allah wixii dhan oo isku baaba'ayaan waa kana saa ujeedin sida wuxuu noqday mashaaric camal wixii dhan oo isku soo qasay si fiican iskugu soo garaac walaalahayga qaaliga waxaa waaye treatment-kaaneet waa mid aan isticmaalo oo markasto every week waxaa waaye markaan timaha aan rabo inaan dhaqdo kooda hore waxaan mariyaa alaabtaaneeto ka bacdi markaas aan iska dhaqaa insha Allah ka bacdi timahayga soft waxyar waa fooneynaya ka bacdi kaal araga ku dhahay tinta jajabka iyo waxa dhan waxaa waaye timaha intuu damage iga galay color iyo waxa aan marsaday damage zaaid ay gaaray marka maasha Allah hadirtaan recovery ku jira internet-aan oo isticmaala walaalahayga qaaliga I hope adinka inaad ka heli doontiin inaad try gareyn doontiin cause waxyaabo oo zaaid waxtar u leh waaye wax oo aan experience u hayo oo aan samaysto waaye every week marka waxaan idin rajeynayaa insha Allah walaalahayga qaaliga inaad ka heli doontiin kusoo dhawaada channelkayga insha Allah like subscribe share hadda ay ugu cusubtiin subscribe isaara hadii ay hore ila joogteen like iyo comment iyo share iyo samee insha Allah commentigiina dhiirigelina idin tahay waan idinkaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta fiican ay soo dhaweyseen walaalahayga qaaliga I hope you like my videos insha Allah videoyaal badan oo idin soo wadaa oo guri qurxin insha Allah waa isla arki doonaa waxaan idin rajeynayaa walaalahayga inaad ka heli doontiin saa ujeedin waa kana maskigayga meeshuu ii saaran yahay marka waxaa waaye waa marsanaa leh insha Allah ka bacdi markaan ku joogo like 2 to 3 hours insha Allah waa iska dhaqi doonaa
waxaa bacda oo cuntada lagu raabgareeyaa ku raabgareynaysaa haddii kale wuu kaa dareeraa maho walaalahey qaaliga ee waa idin soo dhaweynaa insha Allah idinkan isoo dhaweeyaa waa ku mahadsantihiin subscribe-yada badan iyo horumarka badan ay gaarsiiseen insha Allah sidaas iyo maca salaama.